meeshaan cilada ah shalay liiga kaxeeyay waa kana meesha aad taagnaa dadweynaha Soomaaliyeed waxa ka codsanaya inta meelaha warwareeg lahaa inay guri marxalad ayay ahayd iyo maalmo murugo ah oo ay soo martay balse bilow u noqday in oohintii qosol u bedelo murugtiina ay farxad u bedesho waa hooyo Hindo Cumar Cabdullaahi oo horey aan u baahinay xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo ay sheegtay inay haysato oo maanta ka mahad celinaysa lacag $10 ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay ku caawiyeen iyada iyo wiilkeeda Haashim Yare kadib baahintii Dalsan waayay Hinda iyo wiilkeedii waa kuwan dabcan lacagtaas ayay wadajir u gudoomayaan maanta dad badan oo Soomaaliyeed oo ka damqaday xaaladda ay sheegatay ayaa wadamo kala duwan iyo dalka gudihiisaba ka soo caawiyay muddo isbuuc ah waxa hooyo Hindo iyo wiilkeeda soo gaaray lacag dhan $8,000 Mareykanka ah oo hadda ugu jirta akoon iyadu ay leedahay wadayaal maanta waa maalin kale oo farxad leh ugana duwan maalmihii murugada lahaa ee ay soo martay Hindo Cumar Cabdullaahi oo ah gabadhii horey aan xaaladeeda idinkugu baahinay isla markaana aad ka aragteen telefishinka Dalsan Hindo maanta waxa ay gacanta ku haysaa oo dabcan aan halkan u taaganahay inaan ku wareejino lacagtan oo ah $8,000 Mareykanka ah oo dadka Soomaaliyeed daafaha caalamka jooga ay soo gaarsiiyeen kana damqadeen xaaladii haysatay halkan idin kaga sheegtay maanta ayaan ku wareejinaynaa lacagtan oo ah $8,000 Mareykanka ah oo u soo aruurtay Hinda waxaan rabaa inaan Hindo ku wareejiyo lacagtan oo ah $8,000 Hinda waxa ay dareemaysaa xaalad ka duwan tii kal hore qalbiga ayay uga mahad celinaysaa cid walba oo caawisay kana damqatay xaaladda ay sheegatay isoo gargaarinaya u mahad celinaya wayna isoo gaartay lacagtiina si buuxda isoo gaartay meesha ka soo bixiseen wax qaar qabiilaha naga siiyo way lacagtu ku soo gaartay waa imisa waa $8,000 Mareykanka way dadka Soomaaliyeed maxaa u sheegaysaa lacagtan waxa ka jin gacanta insha Allah waxaa ka bedeli doona nolosheeda sidii hore ee ahayd insha Allah uga bedeli doona insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin maalintii hore iyo maanta dareenka maxaa farqad alxamdulillah maalintii hore qof murugsanaa maantana qof faraxsanaa inkastoo aysan jirin cid si gaar ah u damaanad qaaday nolosheeda iyo tanwiilkeeda yare ee Haashim haddana hooyo Hinda waxa ay ii sheegtay in dad badan ay u sameeyeen ballanqaad aysan weli oofin oo ah in kirada guriga ay degayso iyo nolosha kale ay ka dabarayaan waana midda ay weli tabayso in ay u dhiman tahay maxamed iidil raadiyaha telefishinka Dalsan Muqdisho